magaalada Buuhoodle waxaa maanta soo gaaray fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed Hani UK oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnayd magaalada Garowe caasimadda Puntland waxaana fanaanada si weyn magaalada Buuhoodle ugu soo dhaweeyay dadweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle kuwaasi oo kaga hortagay ilaa 10 kiiloomitir meel dhanka waqooyi kaga beegan Buuhoodle. fanaanada Hani UK ayaa waxaa socod dheer lagu soo mariyay wadooyinka dhexmara xaafadaha iyo suuqyada magaalada Buuhoodle waana kuwan shacabka oo soo dhaweeyay fanaanadani. bismillaahir rahmaanir rahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh. halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa Hani UK oo ka timi London. Hani UK soo dhawow, qalbi furan, niyad furan ku soo dhawow, gobolkaaga Buuhoodle ku soo dhawow. aad baan ugu faraxsanahay maantikaaga aad noo timi aad Buuhoodle noogu timi. Welcome to Buuhoodle Hani UK. ugu dambeyntii Hani UK oo ka qudbadaysay taalada daljirka Daahsoon ayaa waxay ka mahad celisay soo dhaweynta ay u sameeyeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaankani Buuhoodle waana tan iyada oo ka hadlaysa intuu baxo bari kula dalxiiso Buuhoodle taga waa heestaydi ugu horeysay Buuhoodlena waa meeshii ugu horeysay Soomaaliya maanta actually meeshii labaad waan ku faraxsanahay reer Buuhoodle calanka Soomaaliya mar walba kor u qaada insha Allah calankana saa kor u qaada. Thank you. ما هم يبندق فنات لكن مركز أيام الشوغان يدين دقيقة حفلة إن شاء الله. عبد العزيز هذا جامع Buuhoodle.